السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. Waa habeenimo axada oo isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 24 Agoosto sanadka 2025. Hadaba qodobo muhiim ah inuu barnaamijkeena caawa ku soo gudbin doona. Waa hubayna si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii muhiimka ah ee aan ku soo gudbinay barnaamijyada subaxnimo iyo kii galabnimo. haddaba barnaamijka caawa waxaan idinkugu hayaa Mareykanka oo la sheegay in si aan la filayn uu u bilaabay inuu uga guuro dalka Ciraaq. tafaasiil badanna lagama hayo. haddaba waxaa ka socda saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee uu ka deganaa Ciraaq oo uu faarujinayo odagu halkee u socdaa, ciidanka halkee la geeyay, yaa u hanjabay, muxuu ka cararayaa. haddaba warbixino kala duwan oo arrinka warbaahintu ay ka qorayeen goor dhaweyd ayaynu idin la wadaagi doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo ay kululaysay hanjabaadii ka timid Xuutiga, iyagoo ku hanjabay inay Xuutiga siday tahay ula dagaalami doonaan hadduu gantaal kala soo tuuro. haddaba Israa'iil oo ka baqaysa Xuutiga jawaabta uu bixin doono ayaa la isweydiinayaa. haddaba xaaladda guud xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xuutigana waan idin hayaa. qaybta dambe barnaamijkana waxaan ku soo gudbin doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Islaamka ayaa berito shir degdeg ah oo arrinta Gaza ku saabsan yeelanaya. haddaba maxaa laga filayaa shirkaas? barnaamijka ayaa dhiyana ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wuxuu warar soo kordhaa asxaabay waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii habeenimo. haddaba waa habeenimo axada oo isniin ay soo galayso. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Xuutiga. wararkii ku saabsanaa Mareykankii ka cararaya Ciraaq iyo waxaas way noo soo socdaan, laakiin tan ayaan ku hormaraynaa. barnaamijkankii ka horreeyay aad ayaan u faahfaahiyey Israa'iil weerarkii cuslaa ee ay ku qaaday maanta dalka Yemen. 40 gantaal ayay ku dhufatay 50 goobood. waxaa sidoo kale la sheegay in ay 14 diyaaradood weerar ka qaadeen. waxaasoo dhan barnaamijka galabka sida weerarku u dhacay, warkii ka soo baxay Israa'iil, warkii ka soo baxay Xuutiga, barnaamijkaygii galabnimo ayay ku jirtaa. laakiin caawa wararkii soo kordhay ayaan idin hayaa. inta aan daawar barnaamijka galabnimo way soo daawan karaan. marka caawa waxaa soo kordhay hanjabaadii Xuutiga ayaa waxaa ku jirtay wax aan xeerinayno male. rayidka iyo meelaha dadku degan yihiin soo weerarteen Soomaa, adinkuna waxa idinku dhaca waa yaabi doontaa. nimanka marka waa la yaqaanaa, waa aarsanaynaa hadday dhahaan ma soo daahinayaan horey ka imaanayaan. marka maxaa dhacay? caawa afkay furteen Netanyahu iyo wasiirkiisii gaashaandhigga. labadaba wixii ay qoreen aan idin tusoo warbixinta laga qoray. haddaba telefishinka Al Jazeera marka hore wuxuu ku hormarayaa Netanyahu ayaa wuxuu handadayaa Xuutiyiinta. wuxuu leeyahay wixii ka yimaada adinka dusha u ridan doona gardarro kasta oo Israa'iil ku soo gardarootaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu u hanjabayaa nidaamka Xuutiyiinta. wuxuu leeyahay haddaad mar kalena soo weerartaan
ogaada waxa idinku dhaca waxyaabaha la yaab kale uu ku hadlay waxaa ka mid ah mandiqada wuxuu yidhi gobolka bariga dhexe way og yihiin awoodda gacanta Israa'iil inay meel kasta gaarayso oo ciddii ka hor timaada ay iska dhicinayso marka isagu saasuu yidhi ninkii kalaan raacinaynaa kadibna waxay laga yidhi hadalladooda ayaan idin u gudbi doonaa haddaba marka dhanka kale aljazeera waxay leedahay wasiirka gaashaandhigga Katz isaguna wuxuu u hanjabayaa xuutiyiinta wuxuu leeyahay wixii yimaada idinka dusha ridan doona oo maaragtay saaruuq dambe haddaa Israa'iil ku soo garaacdaan iska jira labadooduba waa qaylinayaan maxaa marka ka qaylisiinaya waxay og yihiin xuutigu niman naxa maaha xuutigu niman naxaaya maaha haddayba inta aan hadlaayo aysan weerarin waaye nimankan waa ku dhufanayaan marka nimankan waxa ay ka walwalayaan marka muxuu yihi shalay waa ogeedeen gantaalkii xuutiga khasaaraha uu geystay oo saraakiisha isku qabsatay maxaa loo celin waay lahaa weliba gantaalkaas waxaan idinku eri liishaanka iyo cabirka wuxuu u saaran yahay eraboorada iyo dekadaha ay garaacaan laakiin hadda maxay ku hanjabeen adinkaa noo bilaabay dadka rayidka meelaha ay degan yihiin inaad weerartaan iska kaana qabta yidhaahdeen marka nimankan waxaa ka qaylisiina haddaana soo weerarto iska jir ay leeyihiin waa cabsanayaan waa baqayaan waa jaraynayaan waana la yaqaanaa Netanyahu muxuu ku leeyahay mandiqada waana la ka ogyahay waa la yaqaanaa awoodeenna gacanteenna cid kastaa gaarsiinaynaa waxaasuu leeyahay nimankan waxaas bay qoraan jabaadu waa nimankaa dowlad biica ninkii Katz ka daba hadlay wasiirkiisa gaashaandhigga iska jira madfac daba haddaa nagu soo ridaan nimankan waa maqan yihiin waa la sugayaa kullay annagana waa arki doonaa wixii ka soo kordhaa marka xaaladaasu halkaasay maraysaa dhanka Israa'iil ayaynu weli ku jirnaa war cusuba isaguna caawa soo baxay la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa wuxuu u socdaalayaa Mareykanka wuxuu la kulmayaa dhigiisa Mareykanka ayuu la kulmayaa Rubio ninka la leeyahay wuxuu kala hadli doonaa bisha September waa dhowdahay ogow shirkii qaramada midoobay madaxweynayaasheedii la isugu tagaa dawlado badan ayaa Falastiin aqoonsan doona ninka muxuu isku dayi doonaa diblomaasiyad inuu ka shaqeeyo dawladihii la hadlaa aqoonsanina kan waay saan waay Netanyahu waa soo diray kooxdiis ka gaaraa liiraniyo nimankan wixii dawladihii aqoonsiga waday wixii alla hari karta la har diblomaasiyad ku dadaal ninka Mareykanka la kaasho hawsha qabaaliin haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray wasiirka arrimaha dibadda Saacir ninka la yiraahdo ayaa wuxuu ka dalbaday Yurub inay kala doortaan Israa'iil iyo Xamaas marka wuxuu leeyahay inaad Xamaas doorataan iyo in Israa'iil doorataan marka siyaasadda uu ciyaarayo markuu September meesha tago khidadaas waa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu kaashara Francisco Hebelo Canada waxa Australia waa aqoonsanayna leen sidee u dhacay kartaa nakala doorta anaga iyo Xamaas waa kuwan Falastiiniyiinta anaga waa kaas waa sheekadaas u bilaab kala doorta anaga marka la arki doonaa kullay meeshan diblomaasiyad waa maartay ayaa taala inuu marka Israa'iil waxay rabtaa diblomaasiyad inay ciyaarto marka wasiirkan arrimaha dibadda ma ilaha aniga inuu wax ka keenaa meeshaas dawladahaas meeshay kala joogaan Israa'iil maalin walba isku ku sheegnaa marka isagu waa dadaali doonaa halkaas uu mari doonaa qodobka halkaas kaga gudbaynaa sheekada xiisaha leh ee barnaamijkeena ayaanu gudbaynaa caawa waxaa soo baxay Mareykanka maanta wuxuu bilaabay inuu ka guuro saldhigyadii ugu muhiimsanaa uu ku lahaa Ciraaq lama yaqaano sababta waa tii uu diidanaa aniga Ciraaq kama guuraayo meeshaan kaadidayda u soo cabay kana waa taan mar hore ka hadli jirnay iyadoo cidna lala hadlin ayaa maanta waxaa la arkay labadii saldhigoo ugu waaweynaa Aynul Asad mid la yiraahdo iyo mid airportka ku yaala labadiiba diyaarado waaweyn ay waa guurayaan sidee wuxuu jiraa safaaradda amarna siisay yiraahdeen hal laga guuraa leeyahay saldhigyada hal la baneeyo Ciraaqiyiintii ayaa bam maxaa dhacay waa guurina waa anaka meeshan maalmaha soo socda waliba dhowr maalmood ah haysanaa in alaabteena ku rarano waay waxaa u socotaa ma naqaano markii dambe waxaa la ogaaday inuu isugu tagay Arbil meesha la leeyahay macnaha Kurdistaan Ciraaq laba u qaybsantaa
kurdistaan ciraaqa jirta oo madax bannaan oo macnaha maamul goboleed gooni ah oo dowladda ciraaq iyo waxa kan iyo afaarahooda gudahaysan shaqo ku lahayn laakiin iyagu ma kala go-inoo kor waxay ka yihiin ciraaq laakiin kurdistaanul ciraaq aldhaa nooc minal gooni isutaag camal ayaa ka jira ilaa waagii waxaa la bilaabay sadaam xuseen oo kiimikada waxaa ku weeraray dadkaas marka meeshaas saldhigyuu ku leeyahay uu isugu tegay meeshaan 2 saldhiguu ku lahaa saldhig sunniyiinta aagooda gobolka ambaar la yiraahdo faluuja iyo ay ku yaalaan iyo dhulkaas ambaar la yiraahdo gobolkaas saldhigii ku yaalay waa faaruji saldhigii kale airportka ku yaalan waa ka cararayaa ninkii marka waxa leeyahay maxaa dhacay wax u jiraan sidee yaa galay odaga warar badana marka soo baxay marka qaar waxay leeyihiin Mareykanka wuxuu ka baqayaa Israa'iil iyo Iiraan mar kale intay isku bilaabaan oo ciidankiisa meesha jooga la diirto sunniyiintan iyo shiicadan iyo waxa kan iyo waxa uga roon marka haduusan bahurayn Ciraaq inuu joogo kurdiyiinta u roon dhinaca kurdisku aaday marka sheekadaas halkaas baraysa haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay caawa laga qoray sheekadaas Washington waxay bilowday inay isaga baxdo waliba si aan hore loo sii sheegin oo mufaaja'a saldhigyadii waaweynaa ay ku lahaayeen Ciraaq jiradda sharqul awsad oo warbixintan qoraysa waxay leedahay ciidamada Mareykanka waxay isaga baxeen si aan hore loo sii sheegin oo la yaab leh oo markaa la yaabay 2 saldhig oo waaweyn saldhigga la yiraahdo Aynul Asad iyo saldhigga la yiraahdo An-Nusr oo Ciraaq ku yaala haddaba arintan ayaa waxaa la sheegay inay ka dhigan tahay waqtigii xataa Ciraaqiyiinta wada hadaladooda u socday inaysan ahayn oo mufaaja'a ay tahay ka bixitaankan waxaa la sheegay in ay markaa isugu tagi doonaan Kurdistaan saldhig ku yaala ay tagi doonaan ayaa la leeyahay marka sheekadaas iyaduna soo kortay nimankii Mareykanka ahaa marka kullay waxay u cararayaan waa la ogaan doonaa marka nimankii oo kala cararaya diyaarado waaweyn mididagayso askarta kora fuula wixina qaata kala cararka meesha ka socda Ciraaqiyiintii naga baxal haaya bambax geeliska soo marka sheekadaas meesha ku dhamaato waa arki doonaa qadar xayisiisa kadib wasiiradii arrimaha dibadda dawladaha islaamka ayaa shir degdeg ah Brito isugu imaanaya leeyahay oo isniina arinta Gaza ka hadlayaan waa laga sii hordhacaya wali waxa leeyahay guriyooda iska joogaan loo qaataa leeyahay kuwaas hadda waa arki doonaa wixii laga qoray xayisiita kadib aan isugu soo noqonaynaa متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هب عصرية أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض هذا شقدا مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهب عصرية أونلاين بعدين كتكبر كرتو حكم ذا قرآن الكريم إجادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوى قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد بحيث فهنا كالحديد من برض الشاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6th Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii habeenimo axada oo isniin ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu maraynaa qaybta waxaynu kaga hadlaynaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka islaamka ayaa Brito waxa la shir degdeg isugu imanayaan maxay ka hadlayaan arinta Gaza markii Gaza la weerar ilaa hadda meeqa shir ay yeesheen aliin wax natiijo oo ka soo baxay waxa ay soo qoraan ma jira gurmad gooni ah oo ay u sameeyeen reer Gaza ma jira war kuwan waa islu gooynayaan islaamkan iyo carabtan iyo wax ka jira male guriina iska fariisteeyeen dadka say ugu kacsan yihiin social media sida loo garaaco ayaabe haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera oo warbixin ka qoray dalalka iskaashiga islaamka ayaa waxa la sheegay
inay ka hadli doonaan xasuuqa Israa'iil ay ku hayso Gaza iyo sidii loo midayn lahaa mowqifka dowladaha islaamka. warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wasiirada dowladaha xubnaha ka iskaashiga islaamka ayaa Brito Isniina waa wasiir arrimaha dibadeedyada ayaa waxa la sheegay inay ku kulmi doonaan magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya shir degdeg ah oo looga arisanayo arinta xasuuqa Israa'iil ay ka wado Gaza iyo qorshaha Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato Gaza. haddaba bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga maanta oo Axad ah ayaa lagu sheegay kulankaasi in diiradda lagu saari doono arrimaha xasuuqa Israa'iil ay ka wado iyo go'aanka ay ku gaareen inay la wareegaan oo ay qabsadaan marinka Gaza. waxaa la filayaa kulanka inuu shir gudoomin doono Jidda ka dhacaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan maadaama ay Turkidu dowrkan iyagu ay hogaaminayaan golaha iskaashiga islaamka. marka sheekadu halkaas maraysa kulay nimanka Brito meeshaas isugu tagi doonaan waxna waa soo qorqori doonaan waa soo saari doonaan laakiin wax natiijo oo laga sugayo ma jirta laleey. haddaba waa arkaynaa wixii warar soo kordha adikuna fakari aragti bal waxa qabtaan ka soo qora dad fara badan oo aad wax u fahamsanaa idinku jira sababta Mareykanka mufaajadan uu uga cararayo Ciraaq oo waliba Ciraaq meel kamid u degayo meelihii Shiicada iyo Sunniga ka cararayo maxay idin la tahay ilaa hadda wali faahfaahin badan laga mahayo. marka adikuna bal soo qora aragtidiina waxay idin la tahay la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka waa ku maasantiin sida aad mar walba barnaamijyada ugu xirantiin ugana qayb qaadataan fakarkiina iyo aragtidiina. haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ha ka ilooban YouTube-ka Facebook-na follow gareey si aad u hesho mar walba barnaamijyadeena. inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.